وعيدما ay kala wataan xildhibaan Jacfar iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre waxay u diyaar garoobayaan sidii ugu hortagi lahaayeen dhul ay dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in ay dad shacab ay ka barakacso ku yaala degmada Daynile ee gobolka Banaadir wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale mucaaradka oo iyagana abaabul kala duwan ka wada gudaha caasimadda magaalada Muqdisho ayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa maxaa ka jira in madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed uu ku dhawaaqay in lala dagaalamo dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin ku dhawaaqay dagaal guud oo ka dhanaa dawladda dhexe wararkii ugu dambeeyay iyo xaaladda magaalada Muqdisho oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka bilowdeen ayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa ee marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 19 bisha Afraad ee Abriil ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno ciidamadan aad u jeedaan waxay u diyaar garoobayaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo qaarkood qayb ka ah burburinta guryo ay dad shacab ah ay leeyihiin oo ku yaala degmada Daynile oo ka tirsan gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ciidamadan waxay si toos ah ugu amar qaataan xildhibaan Jacfar oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre waxaana ay doonayaan in ay si awood leh markaasi ku joojiyaan barakicinta ee dawladda federaalka Soomaaliya ay isku dayso in ay barakiciso dad shacab ah oo degan guryo ay leedahay dawladda oo ku yaala degmada Daynile ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho guryahan ayaana sidoo kale waxa la tilmaamay oo la shaaciyay in dawladdu ay dad ganacsata ay ka gadatay isla markaana waxa muuqanayso in durbaba markaasi la dareemayo in xaalku uusan ahayn mid sahlan iyadoona sidoo kale ay u muuqato in durbaba markaasi la dareemayo in abaabulkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ay ka soconayaan gudaha caasimadda magaalada Muqdisho Jacfar waxa uu ku dhawaaqay inuu la dagaalami doono dawladda federaalka ee Soomaaliya haddii ay isku daydo in ay soo gasho gudaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho isla markaana waxa uu tilmaamay in wado kasto markaasi lagu difaaci karo dadka shacabka ah in lagu difaaci doono isla markaana dawladda dhexe Soomaaliya aanan laga yeeli doonin in ay sameeyso dhaqdhaqaaq iyo sidoo kale tallaabo ay ku doonayso in ay dadka shacabka ah ay ku barakiciso sida uu markaasi uu tilmaamay xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya intaas markii uu ku dhawaaqay kadib ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre ayaa isagana waxa uu ku biiray dagaalkan waxaana sidoo kale uu tilmaamay in la difaaci doono dadka ku nool degmada Daynile ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho reer ahaan dadka degan degmadaasi xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waa isku heeb ama sidoo kale waa isku reer waxaana ay markaasi ay doonayaan in ay gabi ahaanba markaasi ay ka hortagaan dhaqdhaqaaq kasto iyo sidoo kale tallaabo kasto oo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku doonayso in dadkan shacabka markaasi looga barakiciyo guryaha ee markaasi ay degan yihiin oo ku yaala gudaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho abaabulkii ugu dambeeyay ayaana sidoo kale durbaba markaasi la dareemayaa waxaana xilligan markaasi soconaya dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadana waxa ay markaasi ay doonaysaa in si awood ah oo qasaba markaasi awood ay soo geyso sidii ay ugu saari lahayd dadkan waxaana la diyaariyay ciidamo iyo cagaf-cagaftii markaasi dumin lahayd guryahan iyadoona sidoo kale durbaba markaasi ay u muuqato in xaalku uusan ahayn mid sahlan dhinaca kalena haddii aynu eegno madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed waxa uu ku hanjabay in uu la dagaalami doono dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa la tilmaamay in abaabulkii ugu dambeeyay xilligan uu markaasi uu ka soconayo gudaha caasimadda Muqdisho waxaana la dareemayaa in abaabulkan uusan ahayn marnaba mid sahlan iyadoona sidoo kale xilligan ay u muuqato in abaabulkiisa uu soconayo isla markaana ay doonayaan in ay gabi ahaanba markaasi ay wada dagaalamaan sida alla tilmaamay warar soo baxayo oo aynu helaynana ay markaasi ay sheegayaan in xilligan ay soconayaan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay iyo sidoo kale abaabulo ay u muuqato in xaalku uusan ahayn marnaba mid sahlan wararku waxay sidoo kale ay intaasi ay ku darayaan
in madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu shaaciyay haddii markaasi xaalku uu sidan uu ku sii socdo in lala dagaalami doono dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana si awood ah oo qasab ah markaasi gacanta loo qaban doono lana joojin doono awood kasto oo ay markaasi isku daydo dowladda dhexe ee Soomaaliya in ay ku muquunayso mucaaradka sidoo kalena markaasi doorashooyin aanan raali laga wada hayn in ay ku qabato gudaha caasimadda Muqdisho xildhibaan Gamaadiid oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu si toos ah markaasi uu ugu dhawaaqay in ay ka go'an tahay mucaaradku in ay dagaalamaan isla markaana awood iyo cudud ay markaasi isugu geeyaan wada kasto markaasi lagu difaaci karo laguna badbaadin karo nidaamka dawladnimo ee wadanka xildhibaanku waxa uu tilmaamay in dulqaadkii uu soo dhamaaday markana dawladdu ay ku qasbayso xubnaha mucaaradka in ay dagaalamaan isla markaana waxa uu tilmaamay in Muqdisho dhexdeeda lagu la dagaalami doono dawladda federaalka Soomaaliya si awood ahna gacanta loo qaban doono oo loo joojin doono oo loo weeqi doono sidoo markaasi uu tilmaamay xildhibaan Gamaadiid oo arrimahaas ka hadlan hadaladiisa waxa kamid ahaa isla markaana hay'adaha la doortay aysan ogeynba inuu waqtigooda dhamaaday isla markaana aan la garanayn marxaladda iyada ah sidii lagu maareyn lahaa runtii halkii laga sugayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wajahidda qatarta dul hoganaysa jiritaanka dowladnimada Soomaaliya in uu ku mashquulsan yahay caburin agajugleyn xarig iyo boob hantidii dhulka iyo danta guud ee shacabka Soomaaliyeed ee danyarta ay deganaan iyo kuwa milkiyadooda ay hadba si xooga looga barakicinayo arrinka asiga ah waan cambaaraynaynaa waxaan halkaan cambaarayn runtii on aad ugu xunun cambaaraynaynaa dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada u badan ee saldhigyada degmooyinka magaalada Muqdisho ku afduuban qofka haddii dambi uu galo dalka shuruuc iyo dastuur buu leeyahay waxaa jirta hanaan iyo qaab loo maray waxa dhacay ee dhalinyarada qaarkood xisbigan ka tirsan yihiin oo uu ka mid yahay Sharma Arke Maxamed Axmed iyo Najiib iyo Saadiyo sida loo xiray waa hanaan afduub ah oo fawda ah oo sharciyad iyo maxaan ku raahday qaanuun intaba aan sal ku lahayn isla markaana baalmarsan qaanuunka dawliga iyo xuquuqda aadanaha intaba waxaan rabnaa si degdeg ah dhalinyarada iyo boqolaalka kale qof ee saldhigyada ku afduuban xorriyadooda in dib loo siiyo waxaa kaloo cambaaraynaynaa barakicinta xarka goosatay ee waayadan dambe lagu darayba dhulkii danta guud oo hanaanka sharci darrada loo xaraashayay ee kuwa ganacsatada ah ee dhigicabeeda ah laga xaraashayay ayaguna dadka ay ka sii barakicinayeen in lagu daray dhul milkiyad dadka Soomaaliyeed u leeyihiin oo la leeyahay inta bixi ama maxaan ku raahdaa dhulkaasi ka tarbiilan marinaynaa dadaan u cabiraynaa wax hore u dhacay meel ay ka dhacdeen ma jirto hore u dhacayna ma waxaan rabnaa marka dawladdu waqtigeedu gawaabsiga ee madaxweyne Sheekh Maxamuud inuu ka waantoobo arrimaha noocaas inta kadib waxaan halkan fariin ugu dirayaa ciidamada ammaanka waxaan leenahay waxaad ku dhisan tihiin shuruuc iyo qawaaniin iyo dastuur dalka uu leeyahay waajibaadkiina halkaas uu ku cadiyay madaxweyne waqtigiisu u dhamaaday isla markaana dariiqii sharciga ka leexday in amar qaldan aad qaadataan إذا كما صار سبريتولي الدون كانوا على كل حساب تمي دونا آخرا ولا كل حساب تمي دونا وحال إذا كربا أمر هذا قلدان شرعي قبال مرسم إن الديدان كانوا ارتمادان وحد أكسونتهين سراكيل هوري الدنبي قلدان أمر قلدان أنت وقاضتي دنبي جيستي أو ضل كدي بديسة يا مالك استبع دعوي كغفرنيت لوغنا فري ولين لدبت تاجي وحارنا مركنا دين شيء madaxweynuhu waqtigiisu waa dhamaaday waxa maanta looga fadhiyana waxa weeyaan doorasho heshiis lagu yahay inuu miiska soo saaraa inta aan la gaarin 15 May hadii la gaarana waxa weeyaan madaxweyne xasan labada uu dadka kala doorsiinaya laba mid la qaata aan lahayn waa maxay tahay waan iska joogayaa oo kursigan waan jeclaaday dhulka iyo dadkan boobaya waa ku amar taagleynaya ama dalka burburayo dalkana ma burburayo kursigana siima joogi doono insha Allah taala
inta aysan gaarin gacanka hadalna madaxweyne waxaan ku leenahay habdhaqanka siyaasadda Soomaaliya waa naga taqaan waxaad shalay diidaneed oo la qaylinaysay wax ka fooxunaad samaysay cid qaadanaysana ma jirto intay goor tahay oo weli tala gacantaada ku dambayso talada miiska soo dhig in doorashada laga wada hadalna ogolow waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan ayagana fariin u diro shacabow dastuurka kumeel gaarka Soomaaliya wuxuu tilmaamayaa awoodda dowladnimadu inay ka bilaabato shacabka kuna dhamaato madaxweynihii aan dooranay ee rabitaankeena ku yimid shalay dariiqii saxda ah inuu ka weecday oo ummadda Soomaaliyeed u kala geeyay ayadoo dunida waliba wixii la dhihi jiray hanaankii dawliga ama world orderkii uu lumay maanta Soomaalidii halkuu isu keeni lahaa oo waliba saameyn weyn ay nagu leedahay juqraafi siyaasadeedka iyo saraaca loogu jira dhulka istiraatiijiga halkuu Soomaali isu keeni lahaa maanta asigii uu reerayn iyo qoysas iyo meel hoose ka sheekaynay ummadda uu kala geeyay waqtigiisina 25 maalmood oo kaliya maanta ka harsanta oo in kugu sii daray xaquuqaadkii dastuuriga ahaa inuu idin doosiyo qof alla qofkii hadidiisa la qaatay xataa sheegay hanaan sharci aan loo soo maraynin saldhigyada degmooyinka uu ku afduubay waxaan rabaa marka awoodda dastuurka idin siiyay inaad muujisaan oo awooddiina isu keentaan oo aad difaacataan xaquuqdiina iyo xasaanadiina iyo sharafkiina iyo karaamadiina iyo dowladnimadiina iyo amnigiinaba haddaad sugtaan ninka dhahaya ama anaa iska joogaya ama maxaan ku dalka burburayo dalka meel qaldan u wadaa gacmaha lagama laaban doono waxaan rabnaa marka inaad isu soo baxdaan awooddiina muujisaan xaquuqdii iyo xaqiinana aad difaacataan inta kadib madaxweynuhu fariin yar ayaan u rabayaa madaxweyne habdhaqan siyaasadda Soomaaliya waa taqaanaa mar kale weli 25 maalmood oo aad leedahay yani awoodii madaxweynenimo aad haysataa ay gacantaada ku jirto 25 kaas maalmood haddaadan ka faa'iideysan rabitaanka guracan ee ku madax marinaada ka soo laaban waxaad gaari doontaa maalin aysan tala gacanta kugu jirin maalin aan waxba adiga laga weydiinayn waxa iyo awoodda inaad dalkan ku haysan kartaa u malaysidna wax sii socon doona ma aad iyo aad baad u maasantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh